dhawaada channelkan Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa dhinaca cryptocurrency-ga Bitcoin-ka xog maraya maalin kasta. Video cusub aan saadbana maalin kasta. Haddaad ku cusubtay channelka, like, subscribe, taabo si qof kale wax uga faa'iideysan karo oo arki karo. Aad ba mahadsantihiin. Waatan chatki waan ragnaa Bitcoin wali waa adeeg yahay. Waxaa la filayay in Bitcoin intaan kasii dhacayo. Laakiin Bitcoin waa adeeg yahay muu dhicin waata Ethereum waa aragtaan wali wuu kacayaa maalin kasta. Laakiin iminka bishii hore waa ka fiicanahay, laakiin bishan iminka wixii waa ka saara dareen dagaalka wali socda Ukraine iyo Ruushka, cuntada waa qaali garowday. Waxaa soo dhan Bitcoin way taabanayaan waa economy waxaan ama Bitcoin noqo ama stock market ka noqo. waxaan ku taabanayaan markasta wax kale waxaan ma waxa weeyeen waxay lacagta wax qoran xagga economiga marayo. Marka waa taabanayna maanta warka xaggu marayo waan naga eegnay cryptocurrency waa ku soo noqon doona waa isla wada akhriyo doona hadana. Bitcoin loses bullish trend and trending as Fed sees trend line as Fed sees restriction rates need some time. Marka waxaa looga jeedaa waxa lagu leeyahay bullish trend markuu imka saakayo duniyadu saadkaada hadana ragga leeyahay Federal Reserve-ka ee maamulka dhinaca bangiyaasha marka lacagta la keenay la amaahdo interest rates ka leeyahay raggaasa lagu leeyahay imka inay waxay filayaan inay inflation ka aad u kacay alaabta dalka laga saybsinayo marka wax la iibsinayo wixii price circus la maraya marka wax lagu leeyahay inuu interest rates kana dib u kacin doonaan hadda taa la kiciyana dadka xukuumad kan lacagna ma hadaan marka lacag la waayana de lacagtii Bitcoin-ka la geliyay waa la soo noqonaya marka wax la filayaa in Bitcoin wax kale dib u dhacaya laakiin waxaan markasta weeraadeen waxba laga dhageysto mar waxay iska soo qoraan waxba laga dhageysto waxaan waa social media iyo news way wax doonaya dadka markasta bachiyaan oo qofku inuu wax iibsan laakiin waxaan qofku inuu investment inuu ka fikiro marka aan iibsan waan istraada waxaan haynayaa 3 sano haynayaa weeraan waan haysanayaa 3 sano oo koraya waan marka adoo marka aad kala dib iibinaya laakiin ma waxaan haynayaa 2 bilood iyo 3 bilood iyo 2 week wax isxog ma jiraan waxaan investment oo long term wana mustaqbalka ka fikirtaa oo lacagta wanad meel ka shataa filayso aday noqoto stock market company iibsanayso wax ka iibsanayso aad la macaamilayso amba hadaad gelinayso cryptocurrency Bitcoin gelinayso waa same isku mid ka waata lagta saday ku taala markasta marka warkaas inta sana akhriyay marka Bitcoin lost the key price support after the minutes of the Federal Reserve's July meeting dashes hopes that loses monetary policy to set return to the US next year. The leading cryptocurrency fell more than 2% and bullish trend drawn from July to 15th July. Since the breakdown sparked concerns deep sales of social media. Kale dadka markay video marka saad duubeen rag Reserve Bank ka shaqeeyay meesha ay raadeen laga yaabo interest rate bank cina markay video saad duubeen waxay marka dadka markay waxa arkeen bay Bitcoin ka haysteen EBM lagu leeyahay because Bitcoin 2% u dhacay laakiin waxa waxba barba dhacda marna waa la sameeyaa laakiin waxba kuma jiraan laakiin Bitcoin waa adeeg yahay uu koriya maalin kasta waana very strong ku noqon chat ku noqon hadana waa kan in kaarka awli chat inta soo saacadi ugu dhimisay marayay imka markii ugu horeysay inta soo ha marka Bitcoin inta ma joojinayo waxa waa hadan waxba ka jirin marka markii ugu horeysay ugan inta soo ha inta soo markii ugu sareeyay marayay marka la arko bishii ugu dambeysay imka waatan bishii ugu dambeysay waan adkayn inta warka cusubna saabixin uu adka markii ugu horeysay inta soo marka inta soo kore waa wax badan intaas marka waxaan marba qaar ba war la imanaya amba war xuma noqdo war fiican noqdo marka waxaan waxa ku xorantay dadka markay akhriyaan bay iibiyaan oo ay warwaraan laakiin qofku waa marka waxaan iibsan wana istirada wana fikirada inta saran hayn kara dad aragtaan markii ugu sareeyay soo mariya marka inta ku iibsatid waa inta u gaarid waxa macaash 60 baan oo meel $40,000 oo lacag badan marka qofku fikira wana istirada okay waxaan waa meel digin maanta kama fikirayo Bitcoin waxay muxuu sameeyaa waxa dhinac weydiis waa education ka wanaad bartaa wanaad akhrisataa meel lacagta gelin ka waata marka dad ku xusay channelka de like subscribe taabo maalin kasta wax ku wada hadlana cryptocurrency xog marayo waxa ka hawshu shoot warka cusub iyo wax isbedeleen inuu kor inuu dhacay ka waata like subscribe taabta hadda su'aalo wax kala weydiinaysan xagga hoose comment-ka iyo saadabacad anuu ka jawaabiyo insha Allah waxaan ka jawaabi karo ka waata maadsantiin wana bari hadana maalin kasta ilaawena video cusub ma kasta saadubna hay